maxaa macnaha ayay xambaarsanayeen hadalladii ay jeediyeen madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo la filayay in sidan si ka duwan ay u hadli doonaan waa maxay isbeddelka ama deganaanta ku jirta khudbadahooda oo aan hore looga baran in badan oo ka mid a Professor Cali Saciid Maxamuud Kulane ayaa weydiinay macnaha ka soo baxay ama waxa laga qaadan karo khudbadihii maanta ay jeediyeen mas'uuliyiintan. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Markii aan shirka iyo maanta khudbadihii madaxdii ay ka jeedinayeen si degan aan u dhageystay waxa iga baxay in shirka markii koowaadba si degan oo xirfadaysan oo talooyin badan iyo fikrado la geliyay shirka oo ku furmay markii koowaad ajandihiisu oo diyaarsanay deegaanka iyo dadka iyo ajandaha iyo habsocodka shirka dhammaantiis wuxuu ekay shir si fiican looga soo baaraan dhigay dhammaantoodna madaxda maanta khudbaynaysay Puntland, Jubbaland, Hirshabelle, Koonfur Galbeed dhammaantood aragtay ay ka midaysnaayeen baa ka muuqatay khudbadooda oo ah in loo baahan yahay xilligan la marayo oo kala guurka ah oo wadankii siyaasadiisii ay qarsan tahay in la helo deganaan siyaasadeed iyo isfahan guud inkastoo aysan si toos u carabaabin dhammaantood dowladda ay qaabka loola hadli lahaa iyo qaabka loola heshiin lahaa haddana aragtidooda guud waxaad ka dareemaysa in ay ka midaysan in loo baahan xilligan isfahan siyaasadeed iyo nidaam degan in kala guurka oo ku dhaco waxaa kaloo laga dareemayay khudbooyinkooda oo iga baxay in loo baahan yahay in wada shaqeyn gaar ah oo hoose ay dhex marto madaxda markii laga reebo dowladda dhexe madaxda maamul goboleedyada isfahankaasina uu muuqdo runtii jawiga oo ku furmay shirkan ay cadaynaysiin oo sii socon doono waxaa kaloo iga baxday in ugu dambeyn qodobada kasoo bixi doona shirka ay noqon doonaan qodobo degan oo khilaaf badan aan lahayn oo ku salaysan laba ajende mise laba qodob oo ah in dowladda federaalka ee dhexe qaabkii loola hadli lahay laisku afkarto iyo in ay samaystaan guddi macnaha sii wada howlaha shirarka dambe intaan la gaarin maxay helay doorashada dalka oo aan isleeyahay kulamada kale oo soo socda madaxdu inay isugu tegi doonaan madaxyada kale ee maamul goboleedyada sida Puntland oo kale magaalada Garowe marka waxaan isleeyahay shirka qaabku ku socdo marka aad fiirisid jawiga oo ku furmay iyo qodobada ka soo bixi karay dhammaantood nidaam degan inuu yahay waa maasanta dadku waxay aad u filayeen khudbadaha maanta la jeedin doona inay noqon doonaan khudbado xanaf u badan dagaal siyaasadeed ku jiraan weeraro la fulin doono oo dhinaca siyaasadda ah wax aad u kulul baa la filay si gaar ah madaxweynaha Puntland iyo madaxweynaha Jubbaland wax laga filayay mana dhicin oo khudbado aad u deganeed marka maxaa is leedahay sidii lagu yaqaan waa ka bedelay waqtiga bedelay wacyiga hadda la marayo oo aan isleeyahay bislaansho ayaa muuqanaya khilaafaadkii qabsigii jadiidkii siyaasadeed oo hoosana inuu dadka iyo maamulada ay madaxda oo soo karay oo dhibaatadiisa ay dareemeen ba muuqanaysa waxa kaloo muuqanaysa in haddii khudbooyinka la kululeeyo oo hadalla adag hawada la soo mariyo dowladda mucaaradada xoogan loo muujiyo inaan macno badan aysan keenaynin oo hadaladii hore loo yiri dowladda iyo mucaaradadii loo muujiyay istahaysigii iyo khilaafaadkii wax badan oo soo kordhiyay marka xilligan inay tahay haddii aan la kala foonaan roomada oo Soomaalidu waxay dhihi jireen oo madaxda maamul goboleedyada ay garteen mar haddii dowladda tanaasuli weysay haddii ay ka garaabi weysay wixii dhacay haddii ay weli go'aanadeedii ay ku adkaysanayso ahay laakiin markaan in ay gasteen inay muhiim tahay in la soo dhawaado tanaasulna oo dhankooda ka yimaado arrintaas sida aan hore u sheegay waa arrin intii shirku uusan dhicin ka hor shirkii khadka ku yeelanayeen madaxdu ay hore usii faafideen wufuud badan iyo dad khiyaar oo arrinta ay kasii faalloodeen marka shirka looga hadlayeen ay xadidnaayeen oo si fiican loo manage gareeyay shirka furitaanka waa maasanta laga bixin ajandaha shirka waxaa qayb ka ah madaxweynaha martigelinaya ee galmudug qoorqoor iyo madaxweynaha koonfur galbeed labadu waxa lagu tiray inay saaxiib dhow leeyihiin dawladda waliba waxa dadku qaar sheegeen in labadoodu meesha la geystay xukuumadda ay ka tirsanaayeen
waxa ay la kulmayaanna waa 3 madaxweyne oo kale oo aad uga fog dawladda dhexe wada shaqeyn ahaan marka isu fiirisay khudbadahooda iyo ujeedada ay shantoodu ay raadinayaan ma isku dambe ahaayeen mise xanta jirta inay dhinacyadu aanay isu dhaweyn baa muuqanaysa waa isu dhow yihiin marka la fiiriyo khudbadaha qaabkay u dhacayeen iyo meelaha kaanba qaadayeen laakiin aniga shirkuud horta waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha markii loo yahay galmudug madaxweyne qoorqoor oo runtii shirka marka uu furmayay khudbad degan oo aad u xirfadaysan oo uu ku xadiday shirka iyo ajandihiisa iyo qodob